Cabdicasiis Xuseen Taarwale maayirka degmada Laascaanood ahna gudoomiyaha golaha deegaanka oo warbaahinta qaranka kula hadlay xafiiskiisa ayaa bulshada gobolka Sool deegaanada hoos yimaada iyo kaamamka barakacayaasha ugu baaqay inay ka faa'iideystaan xarunta nafaqeynta carruurta oo ku taala cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood waxaana maayirku ku adkeeyay bulshada ka cabanaysa nafaqa darrada inay geeyaan carruurtooda nafaqa darradu hayso cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood maanta shirkan waxaan u qabtay inaan kaga hadlo hal qodob oo muhiim ah oo aan halkan doonayn ka iclaamiyo saad la socotaan waxa cisbitaalka Laascaanood dhexdiisa ka furan xarun loogu talagalay carruurta nafaqa darradu hayso in muxuu ahaa la geeyo oo halkaa lagu xanaaneeyo ilaa iyo inta nafaqa darradu ka baxayso marka waxaan halkan baaq ugu dirayaa dheer guud ahaan dadweynaha ku nool gobolka Sool oo isku dhan kaamamka barakacayaasha tuulooyinka deegaan walba gobolka Sool ka tirsan inay noo furan tahay xarunta nafaqeynta carruurta ayna nooga furan tahay isbitaalka weyn ee Laascaanood dhexdiisa xaruntaasi waxyaalaha ka cabanaysa waxa kamid ah in carruur lagu nafaqeeyo leeyahay meel walba nafaqa darra laga soo sheegaya deegaamo badan marka waxaan leeyahay fursadda yeenan dayicin aynu ka faa'iideysano waa wax carruurteena u wacan ciyaalka nafaqa darrada Afrika haysata haddaynu helay xarun aynu leenahay oo ciyaalka nafaqa darrada hayso lagu xanaaneeyo waxaan leenahay cid kasta oo fariinta dhageysata ama ka war haysa ciyaal nafaqa darrada hayso inay xarunta keenaan si loogu daweeyo saado socotaan carruurtu waxa weeye waa waxa ugu muhiimsan ee muxuu ahaa bini aadanku uu ku xisaabtamo waa jiilkii birita mustaqbalka marka waxaan leeyahay xarunta aynu ka faa'iideysano hari habeen way furan tahay marka waxaan kaga baxayaa xarunta waa in la keenaa waxa la waxa ciyaal nafaqa darro hayso ribood walba oo la keeno gobolka laga soo diyaariyo nafaqa darrada ciyaalku way hooseysaa xaruntiina ay tagamayso marka labadaas laba is qabanaya maaha waxaan si gaar ah ugu baaqayaa waalidiinta inay carruurahooda keenaan si hooyooyinka ciyaalada nafaqa darrada hayso inay xarunta keenaan aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan rajeynaynaa inaad baaqaa inaad soo ajiibi doontaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntiina xarunta nafaqeynta carruurta ayaa ku taala gudaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood Liibaan Axmed Ciise Liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood